السلام عليكم صاحبي soo dhawaada waa mar kale imtixaaniheenii YouTube 2020ka maanta muuqaalkeena waxaan ku eegi doonaa qaabka aad channelkaaga u xaqiijin karto si qolada YouTube-ka ay channelkaaga u aqoonsadaan inuu yahay channel rasmi ah waxyaabaha faa'iidada leh aad ka helayso inaad channelkaaga xaqiijisana waxaa ka mid ah inaad awood u leedahay inaad muuqaaladaadii dul saarato thumbnail aad adiga soo samaysatay waxaan jeclaa maanta muuqaalkeenan inaan ku eegno qaabkii aad u xaqiijin karto ama u faahfaahin karto channelkaaga tusaalahan haddii aad doonayso inaad thumbnail aad adiga soo samaysatay saarato muuqaaladaada waxyaabaha uu ku leeyahay ayaan ugu horreyn wada arki doonaa waxaad u baahantaa marka inaad soo furato applicationka YouTube Studio ayaad soo furan kartaa amaba Chrome-ka ayaad waxaad ka booqan kartaa website-ka YouTube Studio labadanba waa isku mid website-na way leeyihiin application-na way leeyihiin insha Allah waan wada arki doonaa application-kan iyo faa'iido uu leeyahay waxaan soo furtay applicationka YouTube Studio wuxuu kuu soo furmi doonaa marka sida tan oo kale qaabkiisa sida tan ayuu egyahay waxaan sameynaa marka muuqaalkan ayaan doortay waa muuqaalkii tijaabada ahaa korkiisa ayaan taabanayaa kadib waxaad sameynaysaa calaamadan qalinka ee qayb sare ku taala ayaad kasii dooran doontaa kadib waxyaabahan ayuu kusoo bandhigi doonaa marka applicationkan faa'iido uu leeyahay insha Allah muuqaal kale ayaan ku arki doonaa waxaan sameynayaa marka halkan edit thumbnail ay ku qoran tahay ayaan kasii dooranayaa markaan kasii doorto saan horeba idinku soo sheegay systemka YouTube-ka wuxuu sawir ka qaadanayaa mid kamid ah sawiradii ku jiray muuqaalkaaga waxaan rabaa marka inaan ku soo upload gareysto custom thumbnail aan aniga leeyahay halkan custom thumbnail qoran tahay ayaan korkeeda taaban doonaa saad halkaas ugu jeedo marka wuxuu leeyahay si aad ugu soo darato custom thumbnails waxaad u baahan tahay inaad xaqiijiso account-kaaga adigoo markaas isticmaalaya computer-kaaga waxaan muuqaalkan ku eegi doonaa marka qaabkii aan ku xalin lahayn ciladan waxaad marka kaliya u baahan tahay si aad u xaqiijiso account-kaaga inaad soo furato browser-kaaga waxaad soo furanaysaa browser-kaaga kadib sida caadi inoo jirtay halkan waxaan ku qorayaa youtube.com kadib markii aad ku qorto go ayaad leedahay oo waxaad booqanaysaa website-ka YouTube-ka ama waxaad kaloo sameyn kartaa adigoo waxyaabahan tirada badan YouTube waxaabas aadan soo gelin halkan waxaad ku qori kartaa YouTube ayaad ku qoraysaa kadib slash ayaad leedahay kadib halkan waxaad ku qoraysaa marka verify ayaad ku qoraysaa si markaas si direct oo inuu dul geeyo page-kii aan rabnay inaan account-kayna ka xaqiijino youtube/verify ayaad ku qoraysaa kadib go ayaad leedahay kadib page-kan ayuu ku soo gudbin doonaa marka waxaad sameynaysaa page ugu horeeya ee YouTube verify ayaad kasii dooran doontaa hadda marka meesha aan rabno inaan ka verify garano page-keena waa kan waxaad halkan ka arkaysaa page-ka aan soo booqnay waa kan youtube.com/verify marka qaybtan ugu sareysa waxaad u jeedaa inuu leeyahay account verification wuxuu ku marsiin doonaa 2 step qoraalkan hoose aad akhrisan wuxuu ku leeyahay xaqiijinta account-kaaga waxay faa'iido ku leedahay yani in additional features inay ku furmaan sida thumbnail-kii oo kale inaad channel-kaaga ku soo upload garin karto muuqaalka dheer 16 daqiiqo waxyaabahaas oo dhan ayuu ku furi doonaa markii aad xaqiijiso YouTube account-kaaga sidoo kale waxay ku leeyihiin inaadan robot ahaynin ayaan ogaan doonaa oo aad tahay real YouTuber rasmi ah halkan hoose marka select your country qorantahay wuxuu si automatic u dooran doonaa wadankii aad joogtay markaas waxba ka bedelin aniga haatan Soomaaliya ayuu ii dooray sidoo kale halkan hoose wuxuu ku leeyahay sidee baan kugu soo dirnaa verification code-ka muku soo wacna ayay ku leeyihiin mise text message ahaan ayaan kugu soo dirnaa aniga haatan text message ahaan ayaan doortay kadib waxaad sameynaysaa kaliya marka halkan hoose ee what is your number qorantahay waxaad geli doontaa numberkii aad rabtay inaad ku xaqiijisato channel-kaaga mar badanna waxaan arkay dhalinyaro aad u far badan oo dhahaya number Soomaaliya ayaan ku xaqiijiyay channel-kayga dib miya igaaga iman kara wax dhibaato ah ma lahan haddii aad ku xaqiijisato number Soomaaliya channel-kaagii wax dhibaato ah ma lahan halkan waxaad gelinaysaa marka number-kaagii haatan aniga number-kayga ayaan gelinayaa adigoo markaas halkan gelinaya 6 number tusaale ahaan 6 number kaliya ayaad geli doontaa oo ka bilaabanaysa 6 hal haddaad remote isticmaalayso 6 hal ayaad ka bilaabi doontaa haddaad nambarada kale ka isticmaalayso runtii ma aqaan laakiin kaliya waxaad u baahan tahay adiga inaad ka bilowdo 6 hal kadib waxaad leedahay submit ayaad leedahay xogaa kadib waxaa ku soo wici doona marka ama uu ku soo gaari doono verification code-kaaga imaan doona qolada YouTube-ka sadalkaas wujid uu inuu soo gaaray verification code-ka ayaan halkan gelinayaa markaad verification code-kii geliso waxaad kaliya sameynaysaa marka submit ayaad leedahay sadalkaas wujid wuxuu leeyahay verified congratulations ayuu ku leeyahay your account is now verified marka waxaad sameynaysaa continue ayaad leedahay
waxyaabahan haddii uu kuu soo saaro uu ku yiraahdo page isn't available waxaad samaynaysaa saddexdan dhibcood ayaad tegaysaa kadib desktop side ayaad saari doontaa. haatan haddii aan halkan zoom idiin soo dhawo wuxuu ii soo gudbiyey qaybta status and features ayuu ii soo gudbiyey. waxaad u jeedaa halkan SMTT2 waa verify. sidoo kale adeegyada ii furmayna waxaa ka mid ah saad halkan ugu jeeda longer video waa enable, custom thumbnail saad halkan ka arkayso waa enable. sidoo kale haddaad rabto inaad live stream enable ka dhigato halkan waxaad leedahay enable ayaad leedahay keliya kadib waxyaabahan ayuu ku saari doona marka wuxuu ku leeyahay 24 saac kadib ayaan ku active gareeynaa adeegan. haatan haddii aan ku laabano page-keenii hore adeegyadan qaar waxay kaaga baahan yihiin marka inaad hesho subscribe ama channel-kaaga uu sameeyo activity kadib ayay kuu soo furi doonaan waxyaabahan sida monetization-kan oo kale insha Allah waan arki doonaa qaabka loo furto. waxyaabahan qaarkood si ay kugu furan waxay kaaga baahan yihiin marka inaad hesho subscribe iyo inaad shuruudihii ay ugu talagaleen inaad buuxiso. haatan haddii aan soo furto application-keenii YouTube Studio app YouTube Studio ayaan soo furnayaa. halkan haddii aan ka laabto waxaad samaynaysaa marka muuqaalkii aad rabtay inaad thumbnail dul saarato ayaad dooran doontaa kadib calaamadaas qalinka aad kasii dooran doontaa. waxaad samaynaysaa marka edit a thumbnail ayaad leedahay custom ayaan kasii dooranaya halkan saad halkaas u jeedo si automatic wuxuu kuu geyn doonaa marka gallery-ga mobilkaaga ama waxyaabihii ku jiray mobilkaaga. haatan marka waxaad samaynaysaa waxaad soo dooran doontaa marka thumbnailkaagii. thumbnailkan cabir gooni ayuu leeyahay insha Allah waan arki doonaa qaabka loo sameeyo. kadib waxaad samaynaysaa select ayaad leedahay kadib save ayaad sii leedahay. saad halkaas u jeedo sawirkii halkaas ayuu kasoo muuqday oo haatan kadib qofkii markuu muuqaaladaada arko waxa uu soo muuqan doono marka sawirkan waxa ugu horeeya ee uu soo muuqan doono waa sawirkan loo yaqaano thumbnailka. waxaana jeclaa muuqaalkeenii ku saabsiisanaa sida aad u xaqiijin karto channel-kaaga ama account-kaaga inaan halkaas kusoo gabagabeeyo. waan filaan rajeynaya inaad waxbartood ka fahamtay ama ka faa'iiday. waa anigu asxaabkeen Cusmaan oo idin leh. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.